jacayl iyo jihaad buuggani waxa uu xambaarsan yahay sheeko isku milan oo ka kooban dhacdooyin dhab ah waa qiso xambaarsan dhacdooyin ay dhandhamiyeen dhalintii u soo joogtay dharaaro badan oo qisadan lagu xusay waa qiso ay ku kulmeen 3 hawlood oo mid waliba culayskeeda leedahay waa jacayl jihaad iyo haajiraad waa qalinkii Axmed Maxamed Yuusuf Axmed Barwaani sheekada jacayl iyo jihaad waa sheeko qaadaa dhigaysa dhacdo jacayl ah oo magaalada Hargeysa ku dhex martay wiil iyo gabadh dhalinyaro ah waqtigii ay ku jireen dugsiga sare oo ah xilliga ugu macaan nolosha ee dhalinyarnimada nasiib darrase waxa u suurtagelin waayay inay waqtigaasi si fiican uga faa'iidaystaan taliskii foosha xuma ee cadaadiska ku hayay dhammaanba dadkii ku dhaqnaa deegaanada Soomaaliland yar iyo weynba lamaanahan oo uu kala fogeeyay halkankii xaq ahaa ee dib loogu soo dabaalay hashii maandeeq ee Soomaaliland ee curad habooday balse nasiib dib isugu simay sanado iyo dhibaatooyin badan kadib masaafad 6,000 oo kiiloomitir u jirta baradii jacaylkoodu ka bilaabmay waa mar kaleeto iyo sheekadeenii xiisaha badnayd ee jacayl iyo jihaad oo qaybteedii shanaad inoo marisay magaalada Hargeysa oo 31 May sanadkii 1988 ay ciidamadii SNM gudaha u soo galeen bal haddaba aynu u gudagalno qaybtii 6aad ee sheekada iyo sidii xaaladdu habeenkaasi iyo wixii ka dambeeyayba ay isku beddeshay wuxuu ahaa habeen Hargeysa ay sugaysay dadkuna u bislaayeen xabadda iyo gariirkuna saacadba saacadda ka dambaysa waxa ay ku soo dhawaanayeen magaalada taasi oo dadka u muujinaysay inay ciidamadii SNM gudaha u soo galayaan magaalada oo ay soo jiideen ciidamadii taliskii Siyaad Barre subaxa markuu waagu bariyay waxa gudaha magaalada lagu arkayay mujaahidiintii SNM halka laga waayay ciidankii Siyaad Barre oo ahaa kuwii gumaadkii xalay loo geystay ka badbaaday gabood ka samaysanayay xiryahooda dadku markii ay xaqiiqsadeen in ay xabaddu istaagtay ee guryaha laga soo baxay waxa la isku wada qanciyay in ciidankii Siyaad Barre laga saaray magaalada SNMna qabsatay waxa quraac kala nooc ah loola soo yaacay mujaahidiintii ku sugnaa xaafadaha Hargeysa waxa lagu dhawaaqay guuleysta guushayaale SNM iyo xamaasado kale oo badan deeqa waxa ay subaxa ku sugnayd agagaarka idaacadda Hargeysa oo ay ku jireen ciidamadii Siyaad Barre mujaahidiintuna dusha sare ee xawaadle ka joogeen dadku waxa ay quraacinayaan askartii Siyaad Barre oo saaran kaare hortaagan idaacadda iyaga oo u haysta inay yihiin SNM deeqa waxay ka mid ahayd dadkii kaaraha ku soo dhawaaday dabaaldegana qaybta weyn kaga jiray iyada oo dhanka kalena raadinaysa mujaahid daahir oo aan xusuusteeda ka dhammaan muddo sanad ka badan oo uu ka tirsanaa ururkii SNM askartii markii ay quraacdii kala nooc ahayd isku hubsatay kaarihii istaadhe rasaasna ooda kaga qaaday dadkii la aqoonsay inay yihiin askartii Siyaad Barre qofba maskaxdiisu wax ku amartay naftu orod bay kugu aamintaa beerka dhulka dhig gidaarka dheer ka bood jaantaar rugan ayuu arrin noqday goobtiina lagu kala yaac kaarihiina gurguuray garoonka xawaadle oo lagu sheegay mujaahidiintii ku sig mujaahidiinta halkaas ku sugnaa may sidan hubkaaraha u dhigma ama la og yahay inuu gubi karo qoryaha ay siteen waxa ugu weynaa BKM oo uu sitay Allah u naxariistay mujaahid Geedi Cabdilaahi iyo 2 baasuuke kaaruhu waxa uu cagta sii marinayay wixii ka soo horbaxa dad iyo duunyaba waxa uu dhan walba u ridayay xabado xaddaaf markii uu soo gaaray mujaahidiintii oo aan wax cabsiya ama argagax qabin ayaa mujaahid Cabdilaahi Geed iyo mujaahid Xuseen Cabdilaahi Jaqabuule Allah u naxariistay Allahu Akbar iyo baasuukayaal iska dabageeyeen silsiladiina u gooyeen kaarihi waxa goobtaas iyaguna ku sugnaa mujaahidiin ay ka mid ahaayeen Rashiid Maxamed Bulbul Burur
cabdilaahi geydh falastiini xasan dubbe cabdiqaadir riig iyo mujaahidiin kale oo fara badan intii dhimatayna ilaahay naxariistii janno ha siiyo inta dhaawacahna ilaahay ha caafiyo waxaa xusid mudan gabigii uu abwaan cali banfas allaha u naxariistay uu tiriyey wakhtigaas SNM soo gashay dalka oo ay midhihiisa ka mid ahaayeen si kaloon ku doono xornimo nama dawaysayne dab wixii unkoday iyo wixii danab isdhaafayay dushiinaanu soo halabsannay iyo doontii nebi nuuxe hadday maalintii nala degto oon ruux diriyadda sheegan dulligaan ku nooleen marnaba kama darnaateene daaraha burburay ee madfaca lagu duqaynayay dahab iyo diinaar iyo intii duunyo lagu waayay intii diric shahiidiyo intii danab ku naafooday intii caydh soo dibad baxday een dixindaxoonaynin dirxunkaa dhammayseen ayaan kaga dawoobayay nimankii lahaa dubcasta iyo yeyda daba joogta nimankii dalluumaha xabsiga iilka nagu diiqay mujaahid daahir kama mid ahayn ciidankii subaxaasi ku soo waabariistay magaalada Hargeysa waxaanu la socday ciidan ku sugnaa tuulada Sheekh Moolde oo ahaa ciidan loo reebay inay jidgeyn u galaan wixii ciidanka ka daba yimaada laakiin ciidankii Siyaad Barre oo bahda laga saaray sanadihii u dambeeyayna looga bartay inaanay isu gurman ayaanay ka suurtagelin inay wax ciidan gurmad ah u diraan dhinaca Hargeysa waxaanay noqdeen inay kala farxadaan intoodii xadka ku sugnayd oo intay hubkii dhigeen midba gees u cararay waana waqtigii ciidanka Siyaad Barre isu qaadi jiray heestii ay midhahayga ka midka ahaayeen dhibtoo laysku eegaa way inoo dhaxaysay adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe amba dhame qadhaadhkii waa inaad dandhamisaa dhibta laysku eegaa way inoo dhaxaysay adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe amba dhamay qadhaadhkii waa inaad dandhamisaa badhamay qararkii waa inaad dhadhamisaa magaaladu maalintaasi waxay ku jirtay jawi farxadeed walow dagaal ka bilaabmay haddana dadku waxa ay ku qanacsanaayeen in dagaal hubaysan lala galo taliskii foosha xumaa ee Siyaad Barre rasaastu si teelteela ayay u socotaa iyada oo labada dhan ee SNM iyo taliskii Siyaad Barraba ku jireen hub urursi iyo dib isu habeyn maadaama oo dagaalkii xalay lagu kala filqay magaalada waxa iyaguna abaabul galay dadweynihii magaalada oo taageero iyo hiil xoog leh isla garab taagay mujaahidiintii SNM xidhiidh iyo isku xidhna u noqday mujaahidiinta maadaama oo aani jirin isgaadhsiin ciidan oo ay haysteen SNM subaxii dambe markii uu waagu bariyay waxaa lagu waabariistay ciidankii SNM oo isku wada xidhmay dagaal habaysanna la galay ciidankii Siyaad Barre isla markaana ka sifeeyay magaalada inteedii badnayd ciidankii Siyaad Barre oo isku urursaday xerada Garjeex ayaa waxay bilaabeen maalintaasi gelinkii dambe inay ku soo garaacaan noocyada kala duwan ee hubka qaybaha magaalada SNM kaga jirtay intaasna waxaa raacsanaa diyaaradaha dagaalka oo iyaguna duqaymo ka bilaabay Hargeysa iyo hareeraheedaba deeqa waxay ahayd gabadh dhiiran halgankana u bislayd argagixii shalay kaaruhu ku ridana ma uu noqon mid ku reebay cabsi ay halganka guriga kaga xidhnaato waxay damacday inay u bambaxdo halgankii xirfadii adeega gurmadka degdega ah ee ay baratayna dadka ugu adeegto waxaan meesha ka marnayn oo halganka ugu lamaanaa dabayshii kalgacayl ee kol hore martay oo qayb ka ahayd u soo bambaxa halganka maadaama oo daahirba dhan kaga jiro halganka iyana waxa ay goosatay inay dhankeeda ku bannayn oo ay dhaawiciisa iyo dhaawaca mujaahidiinta kaleba daryeesho deeqa waxay kalkaaliso ka noqotay goob lagu daweeyo dhaawaca shicibka iyo mujaahidiinta madfaca iyo xabaddu haleeleen aqoonta yar ee ay u lahayd gargaarka degdega
iyo dhibka meesha yaalay waxay ahaayeen laba aad u kala fog. waxay la kulmaysay aragtiyo aanay asaageeda xamili karaynin. waxay la kulmaysay dhaawacyo aanay waxba ka tari karin. waxay la kulmaysay oo maalmihii ugu dambeeyey qayb ka noqday nolosheeda aragtida gacan ama lugla jarayo, nafbaxaysa, dadba facgogooyey iyo waxyaabo kale oo aanay naf qalbi jilicsan xamili karin. dhowr maalmood markay deeqa u kalahday u gargaarka dhaawaca iyo shicibka iyo mujaahidiinta ayaa waxaa la keenay goobtii ay ka howlgelaysay nin lagu sido busta 4 ilaa 5 nin ayaa la ordayay. dad kaloo badanna way barbaryaacayaan oo u baneeya dariiqa. madfac baa ku dhacay, dhiigga joojiya iyo dhakhtarkiime. waa la isla dhex qaylinayaa ninkii la dhig daaradii gurigii dhakhtarka laga dhigtay. agabka caafimaad ee yaalla waa mid kooban oo ah mid laga soo ururiyey farmasiyada. waa wax dhaawac fudud wax lagaga qaban karo, laakiin dad badan oo goobtan ku shahiiday iyo ninkan odayga ah ee la soo dhigay goobtan aan dhaawacooda waxba ugu filnayn. deeqa waxay ahayd kalkaalayaashii ugu soo horbaxay ee damcay inay u gargaaraan ninkan la keenay goobta. alla hoogayey iyo ilmo aan baroor wadan ayaa hal mar ka soo wada baxay deeqa. waxay u qaban karto ma jiraan. waxaa jidhkiisa ka buuxa faliidho, waxaa qariyey oogadiisa dhiig. waxa keliya ee u fayoobay waa wejiga oo deeqi ku aqoonsatay. intay madaxiisa fadhiisatay ayay dhabta ku qabatay. hadal kuma jiro, laakiin waxaa dareemi karaysay inuu yahay addoon allah waafajiyey tawxiidka. deeqina waxay ugu daraysay qur-aanka iyo tawxiidka. muddo saacad ku dhow markii ay madaxiisa dhabta ku haysay ayaa allah oofsaday deeqa aabbaheed oo ka mid ahaa dadweynihii ugu horreeyey ee ku shahiiday madaafiicdii siyaad barre ciidankiisu la beegsadeen dadka shicibka ah. maalintaasi ay aqoonta noqotay deeqa ee geeridu haleeshay aabbaheed waxaa magaalada soo gaadhay ciidankii daahir la socday oo maalintaasi dagaal culus kula galay ciidankii siyaad barre beesha loo yaqaano Sheedaha. dagaalkaasi oo ahaa kii ugu cuslaa ee magaalada ku dhex mara SNM iyo ciidamadii siyaad barre wiigii ugu horreeyey marka laga reebo habeenkii la soo galay. dagaalkaasi waxaa kaga shahiiday SNM allah ha u naxariistee 18 mujaahid. ciidankii siyaad barre waxay ahaayeen kuwa meydkoodu iska duldaatay, tirana lagu koobi kari waayey. ciidankii siyaad barre ee goobtaas ku sugnaa waxay kor u dhaafayeen 1,000 askari, waxaana wajahay 150 mujaahid oo keliya oo aanay taageeraynin wax tiknika ahi, halka iyagoo ay ka wateen tiknikada nooc kaste, beebeeyo, kaarayaal iyo weliba diyaaradda oo dusha ka saacidaysay. waxaa xusud midan oo ka mid ahaa mujaahidiintii maalintaasi shahiiday allah u naxariistee mujaahid Indhacase oo maalintaasi dagaal gelinayay ciidanka. mujaahid Buuni oo ku-xigeenka ahaa oo ka dulqaatay siiri uu sitay, isagana allah u naxariistee halkaasi ayuu ku shahiiday. waxaana hoggaankii qabtay Axmed Cabdilaahi Cumar Saxar oo allah u naxariistee isaguna isla goobtaas ku shahiiday. maalintaasi waxay ahayd maalintii ciidamadii siyaad barre ogaadeen qiimaha ay leedahay takbiirtu allahu akbar ee mujaahidiintu ku dagaalgeli jireen. waxay dareemeen siday kelmaddu u gildhishay. waxay isku dayeen inay isticmaalaan, laakiin takbiirtu afka maahee waa qalbiga, waxaanay ka sii qaadeen saska leh. waa maalintii ay daadiyeen dirayska ciidanku ee ay sidii mujaahidiinta u jeene qaarteen. halka aynu ka hadlaynaa waa xaafad ka mid ah xaafadaha ugu bilcsan magaalada Hargeysa uguna qaalisan. waa goobta uu ku yaalo hoteelka Mansour iyo agagaarkiisa. waxaan filayaa in qof kasta maalintaasi iyo maalmo kale oo ka dambeeyay ogaa dhiiggii ku daatay uu maalin kasta xasuusnaan doono, xusino doono dhalintii ku shahiiday ee dhiigoodu ku daatay si ay uga xoreeyaan cadowga una suura geliyaan nolosha iyo xornimada maanta lagu haysto. waxaa maalmo yar gudahood ka bilaabmay magaalada inay dadku dibadda uga qaxaan kadib markay u adkaysan waayeen madaafiicdii ciidankii siyaad barre sida arxandarrada ah ula beegsanayeen. waxaad arkaysay dad waayeel ah oo aan socon karayn oo lagu riixayo kaariyoone, hooyo umul ah oo ilmaha laalaadsanaysa, bukaan socodka gabay oo agajiidaya,
dadkani may garanaynin meel ay ku wajahan yihiin, laakiin waxay door bideen inay magaalada uga baxaan dibadda iyo dhanka askartii Siyaad Barre aanay joogin. dadka badankiisu waxay u socdeen dhanka waqooyi ee magaalada oo la hubo inaan ciidankii Siyaad Barre joogin, walow haddana la hubin waxa lagala kulmi doono bambixidaasi. laakiin waxa laga cararayay waa madfac iyo rasaas xaddaaf ah oo ciidamadii Siyaad Barre la beegsanayeen magaalada intay ka joogaan mooyaane inta kale. deeqa oo weli geeridii naxdinta lahayd ee aabaheed la ildaran ayaa 2 maalmood kadib markii ugu horreysay ee ay guriga dibadda uga soo baxdo waxay shaahid u arkaysay hooyo waayeela oo ka qaxaysa madfaca oo ka soo baxday albaabka waqooyi ee guriga xisbiga ee suuqa gobonimo ee eegaya dhanka idaacadda. waa nafla caarid luudaysa, joogna laalaadsanaysa, da'deedana lagu qiyaasi karayay 70 iyo wixii ka sarreeya. waa duhur cad oo aan shaki gelin karin inay tahay qof dumar ah oo waayeel birimagoyda ah. alla naxariistii janno ha siiye waxaa rasaas ku soo riday haraagii ciidankii Siyaad Barre oo ku jiray xaruntii idaacadda. dhulka ayay ku dhacday iyada oo dhaawaca, kadibna way fadhiisatay. daqiiqado yar kadib rasaas kale ayay ooda kaga qaadeen, halkaasina way ku nafbaxday. meydkeeduna wuxuu halkaa yaalay muddo ka badan 2 wiig oo ay ku jireen ciidankaasi idaacadda, kuwaasi oo markii dambe uga dareeray si nafla caariya kadib markii gaajo iyo haraad ku laayay markii go'doon la geliyay. dadkii dilkan arxan darrada ah goobjooga u ahaa ee ay deeqi ka mid ahayd oo weli goobtii taagan kana anfariirsan cadawtinimada ay ciidanka Siyaad Barre u hayaan dadka yar iyo weynba ayaan meel aan ka dheerayn waxaa ku habsaday madfac. faliidadiisiina waxay dhimasho iyo dhaawac u geysteen reer qaxayay oo ka koobnaa 5 carruura, hooyadood iyo aabahood. waxaana goobtaasi ku saqiiray 2 carruura oo wiil iyo gabadh ah oo da'dooduna kala ahayd 9 jir iyo 5 jir. hooyadoodna lug ayaa dhaawac culus ka soo gaaray. loo soo gurmay reerkii masiibadu ku habsatay, qof walibana itaalkiisa ayuu isbiday inuu caawiyo. nasiib darrase waxay ahayd madaafiicdii oo halkii ka ugu horreeyay ku dhacay loola raacay si garbo siman ah, kuwaasi oo sababay dhaawac iyo dhimasho kale oo soo gaaray dadkii rayidka ahaa. mujaahidiintii SNM iyagu waxa ay ku sugnaayeen suuqa hoose ee magaalada oo ay dagaal magaalo ama street war kula jireen ciidankii Siyaad Barre. manay ahayn kuwa joogay goobta ay askartu madaafiicda kula beegsanayso dadka rayidka ah. dhowr jeer oo ay askartii Siyaad Barre isku dayeen inay madaafiicda ku garaacaan goobaha ay mujaahidiintu dagaalka kaga jiraan, iyaga ayaa isla dhacay maadaama oo ay mujaahidiintu aad ugu dhawaayeen goobaha ciidanka Siyaad Barre ku jiray. waxaanay ku qasabtay markay iyagu iskumaadeen inay fogeeyaan madaafiicda oo dadka maatida ah la beegsadaan. naxdintii ugu weyneed ee deeqi maalintaasi la kulanto waxay ahayd markay aragtay hooyo xambaarsan gabar yar oo 2 sano jirtay, 3 kalena garab yaacaya. deeqa waxay aragtay dhiig ka da'aya dhabarka hooyada, waxaana weydiisay, hooyo ma fiican tahay? alla hooyo waa adigaana arkaa, ayay islaantiina ugu jawaabtay. deeqa ayaa tiri, hooyo ma adigaa dhaawacu ku gaadhay mise ilmaha yar? hooyadii dareentay inay gabadhu wax aragtay si degdeg ahna oo naxdin leh ilmihii u furtay. deeqana u qabatay ilmihii yaraa. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaa hal mar ka soo wada baxday markay aqoonsadeen in ilmaha yar falliidh madfac madaxa ka galay, meydna uu yahay. ka sii darane waxay goobtaasi kula kulantay dad kale oo ka soo qaxay meel aan ka durugsanayn goobtii ay joogeen. waxaa ku jirtay gabadh yar oo 6 sano jirtay oo qoyskeedii oo ka koobnaa 5 carruura iyo 2 waalid hal madfac ku wada dilay qol ka mid ah gurigooda. gabadhaas yarina keligeed ay ka badbaaday. dhacdooyinka ay deeqi markhaatiga ka ahayd dhowrkii maalmood ee u dambeeyey waxay ahaayeen kuwa aad u xanuun badan.
welibana markay noqoto qof dumara ama carruura waxay ahaayeen kuwa raad ku reebay intii dhacdooyinkaasi oo hordhaca u ahaa kuwo kale oo badan goobjoog u ahaa xasuusna mudan daahir iyo mujaahidiin uu ka mid yahay waxay ku sugnaayeen agagaarkii dugsigii sare ee 26 Juun ee xaafadda Goljanno halkaasi oo ay dagaal kula jireen ciidankii Siyaad Barre oo dhakhtarka Hargeysa gaboodsanayay ciidanka Siyaad Barre waxay ku dhex jireen isbeddelka dhexdiisa iyagoo isticmaalaya kaarayaal iyo gawaarida gaashaaman ee rasaastana aan u meeldayn una ridayay si xiriir ah oo ahayd yaan SNM ku soo dhaqaaqay inkastoo ay badankeeda marinayeen meelo aan mujaahidiintu joogin maalintaas laba arrimood ayaa la odhan karaa sabab ayay u ahaayeen gumaad iyo saanad furasho lala beegsaday ciidankii Siyaad Barre waa midda hore ee mujaahidiinta aaggaas ku hor fadhida askartu waxay ahaayeen tobaneeyo mujaahid oo si teelteela aagga ugu jiray iyo rasaas yaraan haysay oo aanay wax xabada iska ridaynin iyagoo yool hela mooyaane taasina waxay hoday askartii Siyaad Barre oo mooday inaan mujaahidiintu ka dhaweyn goobtaas markii ay rasaas jawaab waayeen waxaanay isku dayeen inay soo diraan ciidan iyo 3 gaari kuwaasi oo ay mujaahidiintu gumaadeen gaarina ka qabteen labana ka gubeen waxay u ahayd guul farxad leh maadaama oo ay heleen hadiyad ay ku dagaalgeli karaan isla markaana kaga farxin doonaan mujaahidiintii kale oo ay ogaayeen in rasaastu ku yaray hadiyadda waxay u yaqaaneen SNM marka saanad laga soo furto ciidamadii Siyaad Barre saadka SNM waxa uu ahaa saadkii ay siteen ciidamadii Siyaad Barre maadaama oo intii ay rasaasiteen ku dagaalameen maalmihii la soo dhaafay ku talagalka mujaahidiintuna waxa uu ahaa intaan rasaastu ka dhammaan inay ka soo ritaan saadka badan ee ay sitaan ciidamadii Siyaad Barre kuwaasi oo marka la weeraro rasaas iyo agab kaleba ka yaaci jiray sidaasna loogu bixiyay hadiyad mujaahid daahir iyo mujaahid qabale ayaa loo dhiibay qayb ka mid ah hadiyaddii inay gaarsiiyaan mujaahidiintii kale ee aaggaas ka dhaweyd waxaanay soo socdeen ilamaa iyo guryihii hobolladii waaberi daahir goobtaasi hore ayuu isagu u sii dhaafay waxaanu door biday inuu xaggaa iyo daruurihii waa xaafadiisii uu ka wardoono shalay ayaa wiil ay qaraabo yihiin u sheegay in xaafadoodii ka baxday magaalada uuna ku soo arkay gal saxar oo u dhow geed deble ma filayo inuu gurigooda cid ka heli doono maadaama oo ay ka baxeen waxa wadaa waa xiise uu u qabo xaafadooda markii uu soo gaaray meelo badan oo xasuusi ugu dugan tahay ayuu isweydiiyey talow miyay ka baxday magaalada wuxuu ku weecday gurigoodii oo dusha madfac ka soo galay balse aanay cidina waxba ku noqon waxa uu ka wardoonay saaxiibkii mahad xaafadoodii iyana waa haawanaysaa dhowr guri oo kale markuu soo maray ayuu soo gaaray gurigii ay degganayd deeqa markii uu ku soo dhawaaday ayaa waxaa ka soo baxay wiil aanu aqoonsan oo ahaa qaraabada deeqa salaan kadibna waxaa daahir weydiiyey wiilkii miyaa xaafadda laga qaxay iyo haa oo mar dhoweyd ayay ka baxeen daahir oo markii horeba booqasho gaaban ku soo gaadhay xaafadaha ayaa goobtii ku dhaafay tixo ka mid ah maansadii dabahuwan ee abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi intay weli doorxul tahay duulduulka ku kooban tahay hadday tahay maalin daran ka sii daran baa jirtay intay weli doobir tahay dib iyo noqoshaan rabaa dan iyo nolol baan rabaa dawiyo nabad baan rabaa xil daahira baan rabaa naftayda inaan u diro wax uu dugsadaan rabaa hankayga inaan ku dayo dagaal xaq ah baan rabaa deeqdaada inaan ku helo damiir xala baan rabaa deenkaaga inaan ku gudo rabow ifka nooga door dadaalkana noo rumee rabow dambe noo ogow wixii tegey duudsiyeel la soco qaybta 7 ee sheekadan jacayl iyo jihaad Soo helo